waxaanu maantay isugu nimi halkan xafladan qiimaha badan inaan xusno oo aan dhiiri gelino oo aan tusno shaqaalaha Soomaaliyeed inaan garab taaganahay baan maantay u xusaynaa caalamkan looga xusayaa haddaan warbixin yar sida barqadin sheegay aan ka dhaho ururka xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 2007 waxaana ku midaysan ururo badan oo shaqaale Soomaaliyeed oo isugu jira qaybaha kala duwan ee shaqaalaha iyo sektarada loo shaqeeyo wuxuu naga kooban yahay ilaa 10 urur waxaana jecelahay inay ka badan doonaan insha Allah mustaqbalka dhow ururku sanadkii u dambeysay haddaan soo qaato warbixinta oo waxqabadkii ururka waxa ugu muhiimsanaa shir ay isugu yimaadeen shaqaalaha Soomaaliyeed ururadooda oo dhan oo ka dhacay magaalada Muqdisho maadaama ay tahay caasimadda Soomaaliya ururka waxa isugu yimid shirkaas ururo badan waxaana lagu falanqeynayay dhibaatada shaqaalaha Soomaaliyeed haysata iyo sida looga bixi karo waxaa kaloo jiray shir aan seminar oo aqoon kororsi ah oo aanu ku qabanay magaalada Hargeysa sidoo kale oo ay fangareynaysay hay'adda shaqaalaha adduunka ee qaramada midoobay ee ILO sidoo kale waxaan ka qayb galnay aqoon isweydaarsi isugu yimaadeen ilaa 22 waddan oo Afrika ka tirsan oo ka dhacay magaalada Accra ee dalka Ghana halkaas oo aan uga qayb galay oo aan ku matalaynay Soomaaliya urur ahaan aniga guddoomiyahan ana ururka shirka tagay ururka u matalayay waxaan ka sheegnay shaqaalaha Soomaaliya iyo dhibka haysta iyo sida loogu tacadiyo xuquuqda shaqaalaha walow ay jiraan meelo badan oo shaqaaluhu ay aad u cawdaan Afrika ka mid ah oo aan inagu dhaano haddana warbixin baan halkaas ka jeediyay waxaan kaloo ka qayb galay aqoon isweydaarsi kaleeto oo isugu yimaadeen ururada inta badan oo Soomaaliyeed ee shaqaalaha oo ka dhacay dalka Djibouti oo ugu dambeeyo bisha Tanbilowgeeda ahaa shirkaas waxaa noo furay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda Djibouti ee aan walaalaha nahay waxaana laga hadlayay isagana sidoo kale xuquuqda shaqaalaha iyo sidii loo difaaci lahaa waxaa kale oo u dhameeyay oo hadda aan qabanqaabinaynaa shir ay isugu imaan doonaan dhammaan ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee urur xiriirka ka tirsan iyo kuwa ku soo biiray madaxa bannaan oo ka dhici doona magaalada Garowe ee dowladda Puntland caasimadda dowladda Puntland dabayaaqada bishan May haddii la hayno waxaan rabaa inaan mar labaad u hambaliyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed iyo adduunka caalamka meel walba ay joogaan shaqaalaha caalamka maanta oo ay tahay maalintii shaqaalaha adduunka waxaan rabaa inaan dhaho hambaliyo dhammaan waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo inta ku dhimatay iyagoo shaqadooda ku jirta maadaama ay jiraan caqabado iyo xasrado badan oo ka dhaca meelaha shaqaaluhu ay ka shaqeeyaan oo caalamka ka mid ah waxaan rabaa inaan tacsi u diro inta shaqada iyagoo shaqeynaya ku dhex dhintay goobahoodii shaqada waxaan kaloo u hambaliyeynayaa inta heshay dallacsiinta iyo mushaaraadka fiican insha Allah inay sanadka ku xigana ay darajo intaa ka sii sareysa gaaraan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Puntland oo si hagar la'aan ah runtii noola shaqaysay nana garab taagneyd ogna xuquuqda ay shaqaalaha ay leeyihiin Soomaaliyeed oo ay shaqadoodu tahay laakiin si ka badan shaqadooda ula shaqeeya ururka xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed sidoo kale mahad gaar ah waxaan u jeedinayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo runtii si hagar la'aan ula shaqeeyay ururka xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa kaaga mahadcelinaynaa shaqada nabad qabta ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waqtiga ay hureen iyo inay muujiyeen dareenkoodii ahaa inay ka qayb galaan oo ay xafladda ciidda kala qayb galaan ururada shaqaalaha Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan dowladda ururada bulshada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha madaxda iyo Puntland